iyo makeek mihane ومالينيلا هاي ماشي المال خشي من مالقي مكود عندني ولا مريتي عن مال خشي مكود عندني كلها مريتي المال خشي من مالقي مكود عندني ولا مريتي عن مال خشي ضحى الموبيو هراد مغني وانتي عورتوي مكانا هايسي المال هاشي المال مكود عندني ولا مريتي المال هاشي مكود عندني كلها مريتي المال هاشي المال مكود عندني ولا مريتي المال هاشي مكود عندني ولا مريتي أنا درجة وصولي سرك شهيد الكيلو ندم كسدوها walaalayaal ugu horeyn waxaan shacbi weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu hambalyeeyaa meelay joogaanba 24 gurada ka soo wareegtay xuska munaasabadda qaranka ee 18 May si gaar ah waxaan bogaadin ugu dirayaa geesiyaasha ciidamada qaranka kala duwan ee had iyo habeen heeganka u ah adkeynta amniga iyo difaaca dalka hooyo mudanayaal iyo marwooyin midowgii dhex maray labadii dal ee Soomaaliya iyo Soomaaliya 1960kii wuxuu burburay 18 May 1991kii ku jirin in Soomaaliland hore ugu guurisatay kana soo gurubtay dhibaatooyin iyo marxalado kala duwan marxalado culus ka culus dib u dhac doorashooyinka maanta taagan iyadoo aan cidna soo fargelin waxaan aaminsanahay inaanu turxaanta gudaha iyaga ah turxaanta gudaha ee tagala ku filannahay iyadoo aanu sidii caadada noo ahayd wada hadal iyo isabqarsho wanaagsan aanu ku dhammaysan doono waxaan si gaar ah u bogaadinayaa maseexdayaasha lagu seexdo halyeeyada aan fadhiyin een harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiina iyo dadkiinu wuu idin ogsoon yahay taariikhdana way ku jirtaan waana idinku xusuusnoo doonaa intay Soomaaliland jirto maanta oo kale 27 sano ka hor shacabka Soomaaliland waxa uu ugu suntan yahay maalin milgo miisaan iyo maamuus culus leh waa maalintii ay dib la soo noqdeen taasaan u rajaynayaa halkan waxaan kaga faa'iideysan lahaa shaqaaqada ceelaf weyn ka socota dadka walaalahee islaynaya waxaan leeyahay wax alla waxaad isku laynaysaa waa micno daro dagaalkaa joojiya oo ilaahiina u noqda oo nabad dadkii laga dhiga xigmad alla xigmad Soomaali markay isdilayso isku dishaa ma jiro micno laan bay isku dishaa waxaan idin leeyahay
dad sokeeya abaad tihiin meel wada degan meel aad kala qaxdaanna ma jiro anigu deegaankan waan garanayaa waad wada degantiin aqal buu ku dhegan yahay marka walaalayaal waxaan leeyahay dagaalkaa joojiya fariintaasi inay daweyn noqoto iyo inay ilaahay ka rajaynaya Somaliland waxaan halkan ka odhan lahaa waxa ugu weyn ee Somaliland ay ku hirgalayso ee ay wax ku noqonayso waxa weeye midnimada iyo wadajirka Allez,